maalmahan waxaa ku jira saddex maalmood oo si gooniya loo sheegay waa yawmu carafa yawmu nahri yawmu alqar yawmu alcarafa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi carafa maalin ka badan addoon ilaahay inuu naar ka xoreeyo maalinka carafa ma ay jiraan waa yawmul maghfirati wal 'itq min an-nar ilaahayna ugu dar maalinka weyn ma jiro ilaahay naxariistiisa waxa kamid ah iyo deeqda adoomadiisa uu ku galladaystay inuu rabbi u jideeyay xilliyo iyo munaasabaad khayrkiyo iimaanka ay kororsadaan oo kuwii hore u cibaadaysanayay cibaadada ay libin laabaan kuwii hore u gabood falay ee dambaabayna ay toobad keenaan oo dib ay u noqdaan waxaynu ka soo baxnay bishii ramadaan oo nin walba rabbi wuxuu u qadaray dhexdeeda u dhigay nas'alu allaha alqabuula walikhlaas waxa maantana foodayna soo saartay haddaynu nasiib u heli weynay xaramka inaynu tagno haddii ilaahay qadaray aamanaa biqadaa'i illaahi wa qadarih aamanaa billaah wa bimaa jaa'a can illaah hadday suurtageli weyday dadka addoommada ilaahay ee xaramka jecel hadday maanta suurtageli weyday inay cumraystaan hadday maanta suurtageli weyday inay xaj tagaan ilaaha deeqsiga ee kariimkaa meel walba cibaadada wuu ku aqbalayaa rabbi tabaaraka wa tacaala cadadka ugu badan oo naar laga xoreeyo maalinkaas laga xoreeyo markaas nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu noo sheegayaa soomka maalinka muhiimada uu leeyahay markaas nabigu yiri siyaamu yawmi arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati ba'dahu was-sanata allati qablahu waxaan ilaahay kaga ajar xisaabsanaya maalinta soonkeeda inuu dambigayga dhaafo kii hore iyo kii dambe labada ilaahay ku dhaafo maalinka ugu badan oo naarta laga xoreeyo weeyaan adoomada kuwa mashriq jooga iyo kuwa maghrib jooga iyo kuwa jooga ma taqaana xajkii jooga iyo kuwa guryahoodii jooga kuwa baadiyaha ariga ku raacanaya adoon kasta meeshuu joogo ilaahay subhanahu wa ta'ala haduu la yimaado amal saalixa iyo cibaado wanaagsan oo maalinka ilaahay uu waafajiyo wuxuu kamid yahay dadkaas dambigooda la dhaafayo cadaabka ilaahayna laga xoreynayo maalinka kale waa yawm an-nahri waa maalinka ku xiga yawm arafa waa maalinka tobnaad wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam inna a'zama al-ayami 'inda Allah ilaahay agtiisa maalmaha waxa ugu weyn yawm an-nahr maalinta yawm an-nahriga ah oo ciida ah oo acmaasha xajka badankeeda la sameeynayo ayaa ugu weyn waa maalinka waa la tuuranaya waa la xiiranaya waa la qalaya tawaafkii baa la sameeynaya sacyigii baa la sameeynaya acmaasha xajka nooca inta ugu badan maalinka dhacdo waa maalinkaas thumma yawmul qar maalinka ka dambeeyo yawmul qar waa maalinka koow iyo tobnaad yawmul qar waa sugnaashaha ay xujaydu markay amalkaas sameeyaan aynan tagi karin ee ay mina ku sugnaanayaan inay baxana loo galay maalinkaas meel walba rabbi cibaadada uu ku aqbalaya ittaqillaah haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha ilaahi tabaaraka wa ta'ala ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa tabaaraka wa ta'ala inuu meel walba
cibaadadiisa ku aqbalayo faalxamdu lilaah aladii binicmatihi tatimu asaalixaat alxamdu lilah haddaynu xaramkii weynay nacbud allaha huna halkanaynu rabbi ku caabudaynaa alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sida muuqata maalmahan fadliga waxaa loo siiye waxa weeyaan makaanun liijtimaaci ummahaati licibaadati fiiha cibaadooyinkii waaweynaa maalin ay ku kulmi karaan maalmahan baa ka jira alsiyaam alsadaqa alxaj waxa weeyaan kulli waxay ku kulmayaan maalinka salaaddii baa ku jirta sadaqadii soomkii intaa haddaa adigu la timaadid adoo maalmahan aan joogin meel kale aa kula timaadid xajkii baa kaa maqan maalmahan marka waxaa ku kulma acmaashaas waaweyn oo xajku ka mid yahay mana suurtoobi karto maalmo kale inay ku dhex kulmaan ma suurtoobi karto maalmahan unbay ku kulmayaan alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu rajab alxambali asna wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa dadka mu'miniinta quluubtooda waxaa la dhigay hilow iyo jacayl ay u qabaan inay sanad walba soo arkaan beydkiisa oo ay soo daawadaan ayaa qalbigooda la dhigay qof kastana ma awoodo markaasaa ilaahay wuxuu kala qaada dadkii qofkii awooday hal mar baa lagu farad yeelay inuu tago meeshaas 10 maalmoodna waxaa laga dhigay 10 maalmood oo la wadaagsado kuwii xagga tegey iyo kuwa aan tegin oo xajku u suurtogelin waxaa laga dhigay camal ay wada wadaagsanaadaan oo fadaa'ishii baa loogu wada sheegay markaasaa qof kasta meeshiisa ka didaalaya oo fadiiladii iyo qiimihii uu helayo qofkii asagoo aan bixin gurigiisa jooga ee camal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aaday ka fadli badan buu